maalin wanaagsan dhammaantiinaba saaka subax cusub ayay noo tahay. maanta waxaan nooga bilaabi doonaa xilli hore, waqti hore ayaan ka bilaabi doonaa. waa duhur, saaka subaxii aan kacay laakiin hadda duhur weeyaan. haddana marka duhurka dee sariirteydan ka kacayaan gogladay. xiliyadan oo kale aan iska kacaa, marmarka qaar aliseydii aan kaca laakiin waan ku noqdaa hurdada. soo xilligan oo kale caadi ahaan u kacaa, howsheeda kala wataa. waa kasaa iska cadeysanayaa cadageyga muhiim weeyaan. subax mar walba lasoo kaco, subax ha noqoto, galab ha noqoto, duhur ha noqoto, cadagaa laga bilaabo maano. maasha allah. ani rabadaanka rutiin badan malihi. kerfi baan maaragtay wejiga ku dhaqanayaa. shaambada cleansigaas aada ugu fiican yahay dadka ooyal kale, dadka faad kale, soo way ku kala qorqoran yihiin. midkaa jeceshaa soo gadanaysaa. baasha marka aada uma xumbeynayso, waa iska normali. saasaa tartiiba wejiga ugu gentle camala uga waxaynaysa si nadiif u noqoto. walaa nadaafada waad yaabaysa si nadiif u noqotay. maasha allah. haddana waxaan soo qaatay maaska jeel. maask weeyaan, maaska jeel ka samaysan oo wejiga nadiif naacim kaaga dhigaya. alxamdulilah. ciidaa soo dhow. walaahi yani rutiin badan ma sameynin, laakiin berit wixii ka dambeeya wejiga waa dhaqi doona, waa hagaajin doona, ciidan u diyaar garoobi doona insha allah. sidaas oo kale guriga hagaajis buu iga rabaa. howl badan baa ii taalla, soo afurka waa yarey doonaa laakiin howlahayga kale ayaan badin doonaa insha allah. mar walba qoyaankaan ma jecli jirkeyga ku halaasho, kumaana halkaas ii suran oo gacmaha loogu talagalay, mid wejiga loogu talagalay, kii jirka soo shukumaana badanaa la yidhahaa. ii soo celi timaheyga qaawanahay. yaa maasha allah. wejigeyga hadda waa soo dhaqday. maaskihii waxaan ku daayay 10 daqiiqay ahayd. 10 daqiiqo kadib ayaan kasoo dhaqay. haddana waa kana baay nadaafada maasha allah. saas inay wax qoyaan itaabtaan ma jecli. kareem maalin leh aan soo qaadanaa, hormonia la kareemkaas waa daa cream weeyaan, maalinta loogu talagalay. kareemkaas ayaan iska soo qaadan doonaa. serum iyo waxba ma marsan doono, sababta ay tahay rabadaanka waxyaalahaas oo dhan waa iska yariyey. maqoolihii kale iyo cibaadadeedaan badsaday. alxamdulilah, ilaah nagu anfaco. marka kareenka maalinlaha ayaan maaragtay dhag isku siin doonaa. si fiican u marso abaaheleyda. marka insha allah banaanka ayaan aadi doonaa. wax yar kadib salaadii markaan tukado quraan akhrin doonaa, banaankana aadi doonaa. yes, waa isqanciye hadde. wejigeyga aada u shitaada nadiif u noqday maaskaha 10 daqiiqo. alxamdulilah. kadibna salaadeyda ayaan tukan doonaa. salaada waa muhiim, waa salaada duhur ayaan la joogaa. waa muhiim salaada duhur. inta casirka la gaarina aan magaalada u socdaa insha allah. waa soo warwareegaya. kadibna afurka ayaan isku soo noqon doonaa. qur-aanka badiya. nafteydii naftiinaba dardaaran adag weeyaan. waxaa lagu jiraa 4 soo waxa weeyaan muhiim. waa laylatul qadrigi yaa laga yaabaa inuu caawa ku jiro, inuu habeendama ku jiro, inuu habeen kale ku jiro. waa 10 beri ugu dambeysay, weliba 7 habeen oo ugu dambeysay, weliba 5 habeen oo ugu dambeysay. markaan ka faa'iideysano insha allah. qur-aankeyga ayaan dhammaystiran doonaa. la socosho wanaagsan. يا شهر رحمة أرحب بك يا شهر رمضان بك. كارمكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawo video cusub halkaan naga daawaneysana waa kanaalkan Ajo Caraale. fadlan kusoo dhawo gacmo furan oo wacan oo wanaagsan videogan. please waxaan ka codsanayaa like inaad noo saartid, taas waa caawin, waa dhiirigelin. waxay ii noqonaysaa dhiirigelin maalin kasta wax inaan nii soo duubo insha allah. rabadaanku sii gabagabo. rabadaan mubaarak dhammaantiin meel walba aad joogtaan. rabadaanku naga sii dhamaanayaa. ilaahay inta ka dhiman maaragtay khayr ha noogu dhameeyo, nabad ha noogu dhameeyo. nafteyda iyo naftiina waxaan kala dardaarmayaa bishaan inta dambe weliba cibaadadina badino. wax yar baaba harayba, faralku tiris baa harayba. habeenka laylatul qadriga habeenadan hadda aan ku jirno ayay mid kamid ay tahay. ilaahay baa og maalinta ay tahay insha allah. cibaadadan badsanaya maadaama habeenka laylatul qadri waa in la raadiyaa. saas waa inaad u raadisaa, ma ogta habeenkaas ma ogid habeenku ku jiro. marka waxaa looga baahan yahay inaad aad u raadisid. yes,
marka maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsanaan doonaa gabdho badan baa rutiinkayga xoogaa maalintii dhan iga dalbaday yacni maanta oo dhan ima sameynayo laakiin xoogaa kamid a idiin sameyn doonaa insha allah afurkana maanta sidaas oo kale afur yaraan samaysan doonaa sabaayad ban dhac ka siin doonaa insha allah yes haddana ciidda ayaan keenay dharkayga ciidka weliba cabaayada aad u qurux badan ayaa yimid maantay marka insha allah hoos ayaan kusoo qori doonaa snapkayga soo cabaayadahaas qurux badan ay isku dhaafin waxaa u deliif gareyn doonaa yurub keliya africa aasiya america kuma jirto insha allah waa yurub keliya weliba yurubta ii dhow waayo boostada aad qaali u ah saas darteed ayaanan u geen karin meelo aad u badan marka insha allah reer norway sweden finland sida jarmalka ingiriiska oo kale dhan waa ila soo xiriiri kartaan meelahan yurubka ii dhow boostada xoogaa waa yara qaali laakiin insha allah boostadana wax walba aad rabtaan isoo weydii dhar aad u qurux badan halkaan ma soo gelin laakiin beriyaa laga yaaba inaan soo geliyo insha allah cabaayadaha videogana like badan noo saar aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa daawasho wacan maanta arrintu waa sabaayad waxaa ii yaala bur cusbo yar sokor yar saliid yar ayaan isticmaali doonaa diyaar ayaan ahay waxaan soo qaadanayaa hal koob oo bur ah hal koob koobka shaaxa weeyaan digay ahay 2 koob buraan ka dhigtay waxaan soo qaadan doonaa wax yar oo cusbo ah cusbada saarta u qiyaaso wax yar oo sokor ah sokorta waa wax yariisa soo ma jeedid waa wax aad u yar sokorta lama rabo sokor badan sida rootiga camal maaha wax yar oo sokor ah waxaan kaloo ku dari doonaa hal qaado saliidaasa kadibna biyo cad oo qandac ah aan soo kulleeyay ayaan ku qasan doonaa kudhibe xoog leh haddaa u rafaajisid baashaan waxa weeyaan rafaajis sabaayad iyo rootiga ma aragtay saas haddaa u rafaajisid oo si fiican u xashtid hadhow dee wax qurux badanaa kuu soo baxaaya sidaasoo kale an rootigan aad u jeclahay rootiga saas markaa ugu celceliyo oo jilciyo oo gacanta daaliyo aan saas ugu garaaco meesha ma aragteen waxaa ii soo baxaa rooti nacnaca haddana waxaa loo baahan yahay sabaayad kaada iska araga qurux badan kala daadanayso dadku sabaayadda isku si uma samaystaan qof walba sabaayad sibuu u samaystaa laakiin ani sabaayaddaani hooyaday ay bartaan oo yaraantii lee xasuustaa maan anoo wey sabaayad ma baran horta anoo soomaaliya joogo aad u yar baa sabaayadda samayn jiray walaa I think 10 jir 10 adiga 9 jirkayga 10 jirkayga ilaa 12 sano sabaayadda samayn jirin markaas hadee Soomaaliya anoo yar ay ugu dambeysay marka intaas Soomaaliya hooyaday ay bartay mar qurbaha waxaa imid anoo sabaayad aqaano inkastoo dee aan u badneen oo mar walba aan samaysan soo uma jeedid softigaas ay noqonaysaa sabaayad softi saas u xash soft jileecaasna waan jeclaani sababtoo ah wax walba jileec markay yihiin ay qurux badnaadaan waxa markay adag yihiin ma qurux badnaadaan رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims of the Quran descends in this holy month أرحب بك يا شهر رحمة أرحب بك يا شهر رمضان بك أرجي لقاء رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل intii
sabaayad wax yar moogtahay 10 daqiiqo camal sayra qamiir ma aha laakiin sayra isku dhex gasho baan dhigay marka 10 daqiiqo ay suugadeyda isku sii darsan ku doona القرآن Happy Ramadan to all Muslims of the Quran descends in this holy month أرحب بك يا شهر رحمة طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رب sabaayadii 10 daqiiqo way ii daboolnay waa ka dejin doonaa kadib waxaan sameyn doonaa ilaa hadduu ku roon yahay dabka ayaan saaran doonaa dabka ayaan isla aadi doonaa sidii u kala horeeyeen usoo qaad so easy weeyaan markaan baasha way diyaarsanta mood gacanta un baasaas ku leedahay uma baahnid wax kale afargeesaa ka dhigaysaa تقبلها عطول رمضان ندى رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي intaas kaliya cuntada maanta ku fududahay sabaayadii maraq baalkaasna waa kabsar iyo toona isku shiido talaagada aan geliyey aad u fiican yahay tijaabiya sabaayada way soo fuurtay mugjeedaa si usoo fuurtay sabaayad markay soo fuurtay sabaayad saxa inay taal dareemaysaa weliba xoogaa haddaan sii dhigi lahaa aad usii fuulay laakiin 10 daqiiqo waan yareeyay 15 daqiiqada ugu yaraan inaad dhigtidaa fiican way soo fuuraysaa si qurux badan way soo fuuraysaa daawasho wacan inta kale waxaa idiin saari doonaa insha Allah nashiid saasaan ku wadi doonaa طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ندى رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى أوقاتي طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ندى رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى أوقات markay saas usoo furtoo kale saliida dusha uga shubi doonaa sabaayada so waxaa ii fiican intaa markaan gediyo kadib aan ku shubi lahaa inaa anoo intaanan gedin aan ku shuba ii fiican siday saliida u gaarto saliid badan haddaa neceb tahay ka yare horta ma fiicna saliida in la iska badiyo qurux badan ani dahabigaasaan jeclahay inaan gubo ma jecli sabaayada bisraxa dadka way jecel qaarkood inay gubaan laakiin ma jecli sidaas ayaan ku jeclahay waa dhameeyay alxamdulilah finally waxay ii noqotay 4 xabo soo 2 xabo ka badan ma cuni karaba hal qof ahay marka alxamdulilah inkastoo sabaayada aan yara hilmaamay oo sidii hore aan ahayn laakiin haddana xoogaa waa keenay alxamdulilah waxa igu dambeysay malaha 2 sano ka hor laakiin maasha allah sabaayadii aad bay u macaaneyd afur wanaagsan dhammaantiinba like ha hilmaamina fiidiyogan رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims of the Quran descends in this
الصحراء راحة ما